Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaynu ka hadli doonaa qaybtii labaad ee taariikhda magaalada Istanbul. Waxaynu ka hadli doonaa kobcii iyo horumarkii ay samaysay magaalada Istanbul. Aynu la daawanaa. Waxaa sanadkii 1994 loo doortay Recep Tayyip Erdogan inuu noqdo maayarka magaalada Istanbul. Waxa uu markiiba bilaabay inuu dib hagaajin ku sameeyo maamul wanaagga iyo cadaaladda. Erdogan waxa uu bilaabay mashruuc biyo-gelin lagu sameynayo magaalada, kaas oo looga soo jeediyo meel u jirta magaalada 150 kiiloomitir. Mashruucani waxa uu noqday mid si weyn loogu dhaleelo, kaas oo dad badan ula muuqday mid aan dhici karin. Laakiin muddo gaaban kadib, waxa uu mashruucu noqday mid guuleystay. Waxa uu sidoo kale Erdogan dhisay dhowr biyo-xidheen oo cusub oo kale si uu magaaladiisa biyaha uga haqabtiro. Waxa uu sidoo kale dhisay waddooyin iyo biriijyo badan, isagoo adeegsanaya qaab ganacsi iyo kuwa iskaashiba. Waxaanu maray biyoodka Bosphor ka nadiifiyay qashin-qubkii daadsanaa, kaas oo maanta ah mid ka mid ah meelaha loogu dalxiiska badan yahay. Sidoo kale Erdogan waxa uu bixiyay intii uu xilka hayay dhammaan deymihii lagu lahaa dowladda hoose, waxaanu kobciyay dhaqaalaha dowladda hoose sanad walba 7%. Magaalada Istanbul waxay astaan u tahay magaalooyinka horumarka sameeyay kadib markii loo dhiibay dad aqoon iyo karti u leh hogaaminta magaalada. Waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyowgan. Ha ilaawin subscribe, fadlan taabo like, share-tana nagu caawi. Sidaa iyo kulanti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.